السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرقي آن إذن تسي مالين دويت أو آن إذن شيغيي إنان كسمينا يهدو الله إدمه دبوها قرقان وعسوب يهي marka waxaa la yiraahdaa af Carabiga nus tashtiib laha maxaaraad ku qaadanaysa marka guriga sidaan oo kale aha hadaa ajalkii hore la socotaan gurigan wax dhan ma oolin maantana waxa yaalo carradaas Soomaalidu waxay dhahdaa carro kaawo mise carro maayo sidoo kale bulkeeti waad u jeedaan bulkeetigana waxa la dhahaa tuubul ahmar waagi hore Soomaaliya waa la sameeyay jiray laakiin haddeer bulkeetiga caadiga Soomaaliya u badasheen marka bulkeetiga noocan aad iyo aad u fiican yahay marka waxa isweydiin kartaa bulkeetiga noocan oo tuubul ahmar la yiraahdo midka fiican sidee ku ogaani karaa iyo midka xun tusaale yar oo sambal aadi karaa waa in bulkeeti adduunka ka jiro oo ma aragtay hadaa rabtid inaad ogaatid bulkeetiga soo gadatay ma bulkeeti fiican ba ama waa bulkeeti xun waxaa ku ogaani kartaa test aad iyo aad u fudud hal xabba soo qaadaysa bulkeetiga ka bacdi marka soo qaadid dhulkaad ku tuuraysaa joog gaaban hadduu sidiisa si ahaado bulkeetigaas waa bulkeeti fiican hadduu kala jabase macnaha waxa waay bulkeetiga inuu yahay bulkeeti oo ma aragtay madruub ama qash ama wax ay ku jiraan ama ma aragtay sidii loogu talagalay aan u samaysneen sidoo kale waxaan soo gadanay maxal lahaay nus tan ama 500 kiilo oo ma aragtay Allahul musta'aan shamiita oo ma aragtay loogu talagalay in gurigan lagu sameeyo horey waxaan idinka hadalnay in ma aragtay guriga laba bandi ama laba arimood ee aad iyo aad ugu muhiimsan yihiin oo ma aragtay wax walba oo guriga ku saabsan ay ka muhiimsan yihiin hatta quruxda iyo gypsum boardiga iyo dhaldhalaalkan iyo waxaan la sheegayo dhan haddii aad lacag badan gelisid laakiin labadan bandi aad ilowdid inaad ma aragtay lacag si fiican u gelinin gurigaasay faa'iido ma laha bandiga koowaad waa idinku soo celinayaa ajalkan waxaan rabaa horta inaad ma aragtay like iyo share iyo subscribe iyo wax walba ma aragtay la saaro sababtoo wuxuu anfacayaa dadka guriyaha ma aragtay sameysanayo sababtoo qofkii rabo inuu guri sameysto videogii loogu talagalay waa kana guriga bandiga ugu horeey ugu muhiimsan waxa waaye tuubooyinka plumberka tuubistaha tuubooyinka guriga la gelinayo biyaha meesha ay soo marayaan biyaha waxa celinayo oo ma aragtay azli oo ma aragtay ka dhigayo inay biyaha ku sabaynin hoos waa arimaha ugu muhiimsan tuubooyinka tuubo fiican jirto tuubo raqiis jirto tuuxada jirto lacag ha ka baqiilin tuubada nooca ugu fiican oo birmada soo gado hadaaba guri samaysanaysid tuubo oo sugunta haaba isku dayinba tuubada waa inay ahaataa birimo sababtoo haddii aadan ma aragtay aad lacag ka baqiishid hadhow guriga albaqiilu maxaa la yiri yakhsaru maratayn tuubooyin fiican oo quality soo gado meeshan haddeer mushqula laga sameeynayaa tuubooyin oo ma aragtay maxal dhahay BBR la dhahayaa lagu dhijinayaa waxa waay tuubooyinka haddeer ugu fiican dalka Masar dalka Soomaaliya ma garanayo iyo Djibouti iyo Kenya iyo ma aragtay iyo dhulkan NFD iyo ma aragtay Soomaalida deegaanka oo ma aragtay dhinacaas galbeedka naga xigo laakiin tuubooyinka Masar waxa ugu fiican BBR lacag ha ka baqiilin Allahul musta'aan waxa ma aragtay sidoo kale meeshan loo sameeynayaa darbi oo ma aragtay korontooyin lagu xirxirayo oo muhiim bandiga labaad waxa waaye bandiga korontada fiilooyinka korontada waxa waaye muhiimka ayakana muhiimad xoog leh saaragin fiilo oo ma aragtay oo koronto oo qalad hadaa soo gadatid way kuleelay noqon kartaa gurigay kugu gubi kartaa dhinacaasna lacag ka baqiilin fiilada birmada ugu qualiteysan ugu qaalisan soo gado mid ugu qaalisan waxa waa horta dahab waaye dahab oo fiilo ma la awoodi karo laakiin wadankan Masar waxa birima ka markay fiilada tahay nuxaas marka ku dadaala fiilaha hadaa soo gadanaysid fiilada inay ahaato nuxaas waxa waaye copper masamaar fiilo oo maar soo gado
waxaa jirto masar fiilo oo aluminium ah. aluminium fiilo haddaa soo gadatid waxa waaye kuleelay ma aragtay noqoni kartaa oo ma aragtay wax xoog lehna ma soo jiidi karto, gurigana way kugu gubi kartaa. waa la isticmaalaa meelaha qaarkooda fiilada oo ma aragtay aluminiumka ah, laakiin fiilada quality-ga number 1-ka ah waxa waaye fiilada la yiraahdo copper ama maar ama nuxaas af Carabiga. fiilooyinkaas soo gadanaysaa weli waa inay ahaataa 99% ma aragtay copper ama ma aragtay maar inay ahaataa fiilada oo iska jaggaree. haddaa fiiladaas soo gadatid oo aadan lacagta ka baqiilin, korontadaasay ibatul umri way kula joogaysaa hadduu Ilaahay kuu garto. marka waxaa ku dadaashaa in aadan baqiilin tuubooyinka iyo korontada, lacag aadan ka baqiilin, wax walba geli guriga intiisa kale ka baqiil haddaa rabtid. oo ma aragtay qasab kuguma aha inaa mutuleelkii ugu dambeeyay dhigatid, gypsum board bling bling iyo qurux badan inaa samaysatid ma ku qasbanid, laakiin labadan way kula jiri doonaan oo waqti dheer ay kula qaadani doonaan oo ma aragtay noloshaada kula soconi doono haddaa garateen. marka tuubooyinka waa inay ahaadaan quality number 1, fiilooyinka korontadana waa inay ahaadaan sidoo kale quality number 1. marka haddaa guri samaysanaysid labadaas banti ku dadaal. inta kale haddaa rabtid caanooley ka dhig. caanooley waxaan ula jeedaa ma aragtay mashi xaalad noloshaada ma aragtay iska marsi oo ma aragtay qasab ma aha inaad maxal dhahay mutuleel aad ka dhigatid nooca la dhahayo porcelain ama ruqaamka inaad ka dhigatid oo granite dhulka dhigatid oo ma aragtay dhulka bilin ka dhigatid ma loo baahno. waxaa dhigani kartaa xataa shamiita haddaa marisid sida Soomaaliya oo ma aragtay mutuleel la jijibiyay dhaxgelisid xataa waa ku noolaan kartaa, taasi dhib ma laha. laakiin waxaa xoogga saaraysaa waxa waay guriga asaaskiisa oo idilbo korontada iyo tuubooyinka biyaha iyo ma aragtay maadada biyaha ka celinayso mushqulaha in ay dhulka hoos garaan. oo xataa haddii guriga uu ma aragtay mutuleelkiisa jajabo ma wax jajabo, geedkaas wuxuu ku celinaysaa in uusan biyaha dhulka ka gelin oo cidda hoose dhibaato uusan gaarsiinin. tusaale ahaan hadduu guriga dhibaato uu ka gaaro ma aragtay meeshan la yiraahdo tiirarkiisa oo biyo galaan oo biyaha ay ka dhex dusaan oo ay ma aragtay maxal dhahay meeshaas gurigaas inuu khatar